بسم الله الرحمن الرحيم داود يال كسر دوادا برنامج كيني علماء تاريخ ذو حكبة الشيء maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa caalimkii weynaa ee al-Kisaa'i waa hogaamiyaha madrasada Kuufa ee naxwoleyda waa Abul Hasan Ali ibn Hamza ibn Abdullahi ibn Rahman ibn Fayrus oo lagu naanaysi jiray al-Kisaa'i wuxuu ku dhashay Kuufa sanadkii 737 miilaadiga wuxuuna naxwaha ka bartay caalimkii la oran jiray al-Khalil ibn Ahmed al-Faradihi فراديه أيا كل تلي إنه أصفره باديها حجاز إناجد سي ولقد أقصو بوسدو ضدك أهل كوها إيشيد وناسان أقوها اللي جري طلبي معني كيس أيو نقاتي مركي وبصر دي بقصو لابتي أيو أقادي إن معني كيسي جيريو ذي وحنا أولا سمي يونس ابن حبيب أو كوريجي بوسكي معني كيسي وحنا سامين كلها معاهدي الهراء وكمدها علماء نحوها لو قدم بيي sida oo kale wuxuu arday u soo noqday imaamkii fiqhiga ee Basra ee Shu'ayb ibn Hajjaj markii uu ijaaso ka qaatay Yunus ibn Habib ayaa wuxuu ka soo guuray Basra wuxuuna u guuray dhanka Kuufa uu ka noqday madaxa culimada wuxuuna fadhi wadaag la noqday khaliifkii muslimiinta ee al-Mahdi waxaana uu macallin ugu dhigay wiilkiisii Harun al-Rashid markii uu Harun al-Rashid khaliif u noqday wuxuu macallin ugu dhigay labadiisa wiil ee Amin iyo Ma'muun wuxuuna ka mid noqday madaxda khaliifka la shaqeysa Kisaa'i wuxuu alifay buugaag aad u muhiim ah waxaana ka mid ahaa kitaabka mukhtasar fi al-nahwa ee ikhtilaaf al-adad iyo kitaabka al-hija cilmiga nahwaha waxa uu raacsanaa cilmiga qiraa'aadka wuxuuna ka mid yahay todobada qura ee qiraa'aadka quraanka kariimka ah Harun al-Rashid iyo sidoo kalena فقيه محمد ابن حسن الشيباني أيو الراعي دنك فارس هالكاس أيو نكو جيريودي كيسائي إيا سيدو كلا الشيباني با سنة سيداد بقليشان ميلادية حلقي لآسيي وحاجنا سدودا كدو كذي هارون الرشيد مركا أيا وحو يري هذا الكي عانك النقضي أي أها ما أنت فقيه نحوي أيان كو آسني ربويه أو أهيد ديغان كفارس كترسان وانا لولكا هذا لو يقانو إيران داوديال انت سكسو قبقبينينا برنامج كيني علماء تاريخ وحكا بدي شيء انت كل مدونا برنامج شنو عانو كلا نبادينو